بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، ما أنت وحان هل كان كسو قد بن دونا إن شاء الله تعالى in yar kooban oo ku saabsan u diyaar garowga bisha ramadaan. saad la socotaan, waxaa fooda inagu soo haysa bishii weyneed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey oo khayrka badnayd. bishii ramadaan aheyd ayaa nagu soo food leh, maalmo ay nooga hareen. walidaalika sidaa darteeda waxaana loogu baahan yahay, maadaama aan nahay dad muslimiin ah, bishaasi inaan u diyaar garowno. waxyaalahan oogu diyaar garoobayna waxaa ka mid ah, awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala alrujuucu ila allah, inaan ilaahay u laabanno bitawbati nasuuxa. towbad ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaan ogu laabanno, inaan toobad keenna dunuubtii iyo wixii aan ku sugneen aan ka toobad keenno. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay: watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. wardadow alle u toobadkeena dhammaantiina, ayuha almu'minuun, mu'miniintay. waxa lala khidaabaya oo khidaabku ku dhacaya keli waa dadka mu'miniinta ah. markaad u toobad keentaan ilaahay maxaad ka helaysaan? ilaahay wuxuu leeyahay: lacallakum tuflixuun. waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan oo towbadaas ayada ah oo ilaahay ad u laabateen, dunuubtii aad ka soo laabateen, ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa liibaan inaad ka heshaan. walaalayaal, towbadda waa waajib mar kastaba, ma aha ramadaan keli markuu soo galaya. saad ogtihiin, xabiibkeena muxamed aha sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku leeyahay xadiid oo imaamu muslim uu soo saaray: yaa ayuha annaas, wardadow, tuubuu ila allah, war ilaahay u toobadkeena. nabi maxamed aa dhaha calayhi salaatu wasalaam, war alle u toobadkeena. fa innii atuubu ilayhi kula yawmin akthara min 70 maratin. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, anigoo ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay waxaan u laabtaa maalin kasta in ka badan 70 jeer. 70 jeer in ka badan ayaan ilaahay u toobad keenaa, istikfaar oo la imaadaa. riwaayad kale waxay leedahay: kula yawmin 100 maratin. 100 jeer ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. ayadoo ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi: liyakfira laka allaahu maa taqadama min danbika wamaa ta'akhar. nabi maxamed oo dembigaada waa lagu dhaafay, wixii hore maray iyo waxaad la imaan doontaba. nabi macsuum ayuu ahaa, dembi kama dhacaynin. laakiin arrintaas ayada ah anaga ay nagu socotaa. marka waxaa loo baahan yahay ikhwata alkiraam, meesha nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi ahaa, oo maalin kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala 70 jeer in ka badan ilaahay u toobad keenayo. adiga oo dembiilaha ah, dembigaada uu batay, habeen iyo maalin dembiga aad galaysa aan la soo koobi karin, anigoo dembiilaha ah, xaggeen joognaa marka ayada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u laabanno? way kasii owleysan tahay. walaalayaal, towbad ayaa loo baahan yahay. ramadaanka intuusan imaanin inaan toobad keenno, ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabanno. midka labaad,
oo loo baahan yahay ramadaan in loogu diyaar garoobo waa adducaa, qofkii alle inuu baryo, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu weydiisto ilaahay inuu ramadaanka gaarsiiyo, khayr ilaahay inuu ku gaarsiiyo, inuu ilaahay weydiisto ramadaanka asaga ah kuwii loogu dembi dhaafa ilaahay inuu ka mid yeelo, kumanaanka loo dembi dhaafayo ilaahay inuu ka mid yeelo, ilaahay inuu ka baryo. maxaa yeelay salafu haadihi lumma, ummaddantan oo nabi maxamed ummadiisa calayhi salaatu wasalaam dadkooda hore oo wanaagsanaa waxay ahaayeen 6 bilood oo ramadaanka ka dhiman yay ilaahay subxaanahu wa tacaala baryi jireen oo maxay dhihi jireen? ilaahayow ramadaanna gaarsii, ilaahayow ramadaanka na gaarsii, khayrkiis iyo barakadiisana ilaahu na sii, yay ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisan jireen. walaalayaal, ummaddaasi wanaagsanaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadkii u doora ka mid ahaayeen ayaa sida ahaayeen baryadooda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kastaba ka weydiisan jireen bisha ramadaan ilaah inuu gaarsiiyo. sidaad ogsan tahay nabiga waa tan uu yihi calayhi salaatu wasalaam, khayru lquruuni qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum. dadka aan ka sheekaynayn waa dadkii nabi maxamed uu yihi dadka ugu khayr ka badnaa adduunyada soo maray waa dadka ayaga ah. dadkaasaa baryi jiray 6 bilood ka hor inay macnaha ramadaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyo. 6daa bilood markay dhammaato ramadaan la gaaro haddana 5 bilood ka dambe haddana saasoo kale ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay baryi jireen. mar kasta duco ayay ku taagnaayeen. waxay ogaayeen laakiin ramadaanka khayrkiisa iyo barakadiisa iyo liibaantiisa ayay ogaayeen. sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaalaha loogu diyaar garoobaya bisha ramadaan inuu qofka islaamka uu ku farxo bisha ramadaan soo gelitaankeeda. bisha ramadaan dhowaanshaheeda inuu ku farxo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeelay bisha ramadaan waxay ka mid tahay nicmooyinka waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey. walidaalika sidaa darteeda kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yubashiru asxaabahu, asxaabtiisu nabigu u bishaarayn jiray, saxaabadiisu u bishaarayn jiray. muxuu ugu bishaarayn jiray? bisha ramadaan soo gelitaankeeda. wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam, qad jaa'akum, waxaa idin yimid shahru ramadaan, war waxaa idinku soo fool leh, waxaa idinku soo dhowaaday bisha ramadaan ayaa idin timid. shahrun mubaarakun, waa bil la barakeeyey, bil barakaysan buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, barakadeeda wadata. qad iftarada allahu calaykum siyaamahu, ilaahayna wuxuu idinku waajib yeelay bisha ayada ah soonkeeda. maxaa yeele ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam, kuwii alle iyo nabi rumeeyenow soon ayaa laydinku waajib yeelay, kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, sidii kuwii idinka horeeyey oo ummadihii idinka horeeyeen loogu waajib yeelay ayaa idinkana ramadaanka soonkiisa laydinku waajib yeelay. limaada? lacalakum tattaquun, likay tattaquun, inaad cabsataan oo dhowrsataan darteeda ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku waajib yeelay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ayuu ugu bishaarayn jiray bisha ramadaan soo galitaankeeda. wuxuu dhihi jiray waa bil barakaysan, wuxuu dhihi jiray waa bil ramadaankeeda soonkeeda laydinku waajib yeelay. bisha ramadaan tuftaxu fiihi abwaabu ljannaan, jannada albaabaheeda oo 8 ah ayaa la ballaqaa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. jannada maxaa loo ballaqaa albaabadeeda? waxaa loo ballaqayaa dadkan mu'miniinta ah, masaakiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaateen u hoggaansameen, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku abaalmariyo. jannada albaabaheeda 8 ah ayaa la furaa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. wamaa hiya aljanna, jannadu maxay tahay? fiiha maa laa caynun ra'at, rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi basharun qatun. jannada lagu sheegaya waa mid maa laa caynun ra'at, il bini aadan wax weligeed aysan arkin wey, oo ayna tilmaami karin. walaa udunun samicat,
dhegna aysan maqlin jannadaas dhexdeeda wixii ahaaday walaa khatara calaa qalbi basharin qatun qalbi bini aadan weligeed aan kusoo dhicin wixii meeshaa ku jira oo ilaahay ugu diyaariyey marka jannadaas ayada ah ayaa albaabaheeda la furaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa tuqallaqu waxaa la xiraa oo la katiinadeeya oo la xirxiraa abwaabul jaxiim naaraha albaabahoodana waa la xiraa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam naaraha oo 7 ah albaabadooda waa la xiraa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wa tuqallu fiihi maradatu shayaatiin shayaadiinta oo ummadda fasaadisana waa la xirxira ayagana waa la katiinadeeyaa malaa'ig inta loo soo dira ayaa la katiinadayna waxaa la geynaa badda meesha ugu moolsan meeshaasaa lagu xakamayna oo lagu xirayaa si ayna macnaha ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soonkooda ayna ugu fasaadinin shayaadiintaasna waa la xiraa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale wuxuu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen kasta oo bisha ramadaanka ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kumanaan inuu cadaabka ka xoreynayo kumanaan oo aan la soo koobi karin ilaahay inuu cadaabka ka xoreynayo kumanaankaasoo weliba naar u waajibtay ayuu ilahay cadaabka ka xoreeyaa hanii'an lakum ayuha taa'ibuun waxaa idin sugnaatay bogaadin iyo reen kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena maxaa yeelay waxaan arkayna habeen iyo maalin dunuubta aan kasbanayno bisha ramadaan marka la gaarina masaajidii way buuxdaa waxaad arkaysaa marka ayada ah dadkii quluubtooda inay aada iyo aada u jilcan tahay bisha ramadaan marka la gaaro waa farxad aada u weyn oo aan la soo koobi karin haddii aad dunuub ku jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u toobad keento in allaha yakfiru dunuuba jamiican ilahay dunuubta dhammaantooda wuu dhaafaa inahu huwa algafuuru raxiim sidaa darteeda wuxuu kaleu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan dhexdeeda habeen inay ahaatay oo lagu magacaabo leylat lqadr habeen aada u sharaf badan oo khayru min 1000 shahrin 1000 biloodna ka khayr badan ayaa bisha dhexdeeda ahaatay buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka bisha ramadaan nagu soo aadan oo aan sugayno oo maalmo ay noogu hareen khayrkaas ayuu nabigeena ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimadda ahayd aan noqonna kuwii ka faa'iidaysan lahaa bisha ramadaan hadduu ilaahay noo nasiibo saan ogsannahay dad badan oo walaalaheena ah oo axbaabteena ah oo saaxiibadeena ah oo qaraabadeena ah ayaa nasiib u yeelanin inay bishaan ramadaan ay ka qayb qaataan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday sanadii hore way nala soomeen laakiin sanadkan nasiib mayna u yeelanin walaalkaygiiyow walaashaydiyey hadduu ilaahay nasiib kuu siiyo bishatan ramadaan ha noqonin kuwii jibriil uu habaaray oo nabi maxamedna aamiin uu dhahay calayhi salaatu wasalaam muxuu yihi jibriil wuxuu yidhi qof bil ramadaan ay u dhalatay oo aanan ka faa'iidaysanin oo aan sababteeda janno ku galin oo cadaab gala ilaahay ku fogeeya aamin dheh buu yidhi nabigana aamin buu dheh calayhi salaatu wasalaam walaalkaygiiyow walaashaydiye habaarkaasi yuusan ku qabanin haddii aad tahay qof fayow oo xibnihiis ay u fayow yihiin caqligiisu u fayow yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyey ka faa'iidaysa bishaas ramadaan hadduu ilahay ku gaarsiiyo sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha bisha ramadaan oo ugu diyaar garoobayno ibraa'u dhimmati qofka dimadiisa iyo luquntiisa inuu beri yeelo mathalanba waxaa badan oo hadda maanta inay joogaan laga yaabaa dad badan bishii ramadaankii hore aan soo dhaafnay qado lagu yeeshtay haddii bishii ramadaankii aan soo dhaafnay qado oo lagugu yeeshtay qadaha asaga ah iska gud intuusan ramadaanka imaanin maxaa yeelay wadaynullaahi
axaqu an yuqdaa deynta ilaahay in layska gudo ayaa ugu owleysan ugu xaqnimo badan in la gudo. marka haddii lagugu leeyahay bishii ramadaan aan soo dhaafnay qado lagugu leeyahay, fursadaad haystaa, weli maalmaad haysataa, maalmahaasi ka faa'iideyso. sidoo kale waa inaan uga faa'iideysano bisha ramadaan, waa inaan ku qaabilno xusnul khuluq, dabeecad wanaagsan. haddii aad ahayd nin dabeecad qallifsan, dabeecad wanaagsan iska raadi. dabeecadda wanaagsan khayrkeeda iyo barakadeeda ay wadataa iyo liibaanteeda. walaalkaygiyow, walaashaydiyey, haddii ay dabeecadaada xun tahay, fursaduu ilaahay ku siiyey, fursaddan kaga faa'iideyso, dabeecadaada wanaaji, xusnul khuluq la imaw. dabeecadda wanaagsan aad bay u fiican tahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku ducaysan jiray, ilaahayow dabeecooyinka kuwan wanaagsan ilaahayow nagu hadiyey buu dhihi jiray, ma bixiya dabeecadaasi ilaa adiga maahine. ilaahayow waxaan kaa barinaa dabeecad wanaagsan ilah nagu arsuq, aamin ya rabbi alcaalamiin. sidoo kale ashyaada aan ku qaabilayna bisha ramadaan waxaa ka mid ah sadaqa inaan la baxno. sadaqa inaan la baxno. waad ogsantihiin sadaqada nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam daaficu lbalaayaa, wixii balaayada macnaha difaacdaa, taysiru lumuur, umuurta iyo waxyaalaha culeyska ku haysta yay kaa fududaysaa, shifaau lmariid, xanuunkan way daaweysaa. waxyaalo badanuu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. axaadiista waxaa ka mid ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan uu ku tilmaamay sadaqada fadaaisheeda. wuxuu yihi haddii ay wax idinka xanuunsan yihiin ama aad laftiga aada xanuunsan tahay, xanuunka maaha midka lala boko oo sariirta la saaranya, xanuun maskaxiyan ayaa jirta. dad waxaad arkaysaa iska socda oo kule maa depression ayaa ihaya, waxaad arkaysaa fikra igu jira, waxaad arkaysaa stress baa ihaya. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam daawow mardaakum bisadaqa, war kuwiina idinka xanuunsan sadaqa ku daaweeyey buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam. dhakhaatiirtii cisbitaalada waan aadnaa, ilaan waan aaminsannahay, waana ku qanacsannahay xabadkii kaniin nala soo siiye inaan cunno oo daawo aan ka helayna, taasaan aaminsannahay. laakiin mar ma isku dayday xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu 1445 sano ka hor uu nagala dardaarmay nabiga calayhi salaatu wasalaam, daawow mardaakum bisadaqa. markaan isbitaalada kasoo daalno ayaan leenahay kaaliya qofkan qur-aan hala saare, haloo ducooye, masaajidaa la keenaya. may ta iyada hala iska bedelo. ikhwata alkiraam, sadaqada bixinteeda waa inaan ugu diyaar garownaa bisha ramadaan. sidaasoo kale aliktaaru min alistigfaar, istigfaarta inaan badino. astaqfiru llaha alcadiima waatuubu ilayh, astaqfiru llaha alcadiima waatuubu ilayh, astaqfiru llah, subxaana allah, alxamdu lilah, laa ilaaha ila allah, allahu akbar, walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim. istigfaarta inaan badino waa inaan ugu diyaar garownaa bisha ramadaan anagoo dembi la-aan ah, ilaahay subxaanahu wa tacala inuuna gaarsiiye bisha ayada ah. sidoo kale waxyaalaha loogu diyaar garoobayo waxaa ka mid a bisha ramadaan qiraa'at lqur'aan, qur'aanka oo la akriya, in badan qur'aanka oo la akriya. maxaa yeelay bisha ramadaan waxaaba la yihahdaa shahru lqur'aan. saad la socotaan xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam iyo jibriil ayaa bisha ramadaan qur-aanka isu dersin jiray. walidaalika sidaa darteeda salafa hadihi lumma ayagana waxay ahaayeen qur-aanka akhriskiisa inay aada u badan jireen. qur-aanka akhristiisa ayay aada u badan jireen. sida la warinaya imaamka weyn imaamuna shaafici ayaa wuxuu ahaa bisha ramadaan 30 beri 60 khidmo ayuu ku dhamayn jiray. waa maalintii 2 khidmo ayuu akrin jiray. saas ay tahay cibaadadiisa kalena ay u gooni tahay. marka adiga oo maanta isleh waan mashquulsanahay, salaadihii jamaacadad ka gaari laadahay, goormaad akrinaysaa khidmo qur'aan ah maalintii? ya khidmo qur'aan ah goormaad akrisanaysaa? subxaan allah. ikhwata alkiraam,
ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu na gaarsiiyo bisha ramadaan, ilaahay inuu na gaarsiiyo bisha ramadaan qiyaamkeeda iyo macnaha acmaasheeda kale faraha badan. ilaahay subxaanahu wa tacala inuu na gaarsiiyo oo caafimaad nagu gaarsiiya ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa. naftayda iyo tiinib waxaa idinkala dardaarmayaa inaan ilaahay u toobad keenno, cabsidii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan badinno, bishaa khayrka badan hadduu ilaahay na gaarsiiyo aan ka faa'iidaysano. sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka inuu ku dadaalo bisha ramadaan axkaamteed inuu barto. dad badan oo anaga naga mid ah maanta waa la soomaa keli bis ay ogsan yihiin. soonkana ma aha in afka laga sooma biyaha iyo cuntada laga sooma keli ma aha. soonka qofku waa inuu soomaa, meel kasta waa inuu ka soomaa, jawaarixdiisa dhan waa inay soonnaataa, indhihiisa waa inay soonnaadaan, fiirada xun waa inay ka soonaadaan, afkiisa iyo carabkiisa waa inuu soonnaadaa, beenti iyo waxyaalaha maalayacniga uu ka soonnaadaa, gacantiisa waa inay soonnaataa, meel ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli uusan ku hayn uusan ku taabanin, calooshiisa waa inay soonnaataa oo xaaraamta waa inay ka soonnaataa, lugtiisa sidaas oo kale meel ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu caasinayo waa inuusan ugu soconin. ikhwata alkiraam, rasuulku wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam, man lam yadac qowla azuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaaja min an yadaca طacaamahu wa sharaabah. qofkii aanan ka tegin hadalka beenta ah, maalayacniga ah, dulmiga ah, xanta ah, shahaado zuurka ah, fadhi ku dirirka aan ka tegin, qofka asaga ilaahay danka ma laha. inuu dacaamkiisa iyo sharaabkiisa kale ka tago ilaahay subxaanahu wa tacaala danka ma laha. laakiin soonka waxaa loo baahan yahay qofka acdaadiisa dhan inay soomanaadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga yeela kuwa acdaadooda dhan xumaanta ka soomay. in sha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculyaa inuu bisha ramadaan khayrkeeda iyo barakadeeda na gaarsiiyo. waxaan rabaa inaan naftayda itiinaba kala dardaarmo bitaqwa allaahi fi siri waalcalan. ilaahay cabsidiisa aan ku dadaalno, si muuqata iyo si qarsoonba ilaahay subxaanahu wa tacala ugu baqno. haddaan kaligeena nahay cidla aan joogno iyo haddaan dad ku dhex jirno jamaaca nahay, intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa nagu weynaato. intaasaa raba inaan kusoo gaabiyo. hada wabillahi towfiiq, wsala allahu wasalama wbaaraka calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin, walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. سبيل الدموع سبيل مريب، فنهج يا صاحي كي تستريح